بسم الله الرحمن الرحيم waxa caawa marti noogu ah barnaamijka Hanfada Sports Channel gool dhaliyihii xulka galmudug galabtay u soo baxay ciyaarta kama dambaysta ama finalka koobka ama tartanka maamulada dalka Soomaaliya ee ka socda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Maxamed Maxamuud Sarqaawi waa laacibkii labada gool iyo halka ciyaartii galabta ku dhamaatay labada gool ee galmudug ku dhaliyay gaarsiiyay xulka uu matalayo ee galmudug in ay ciyaarta kama dambaysta gaaraan maxamed hambaliyo ciyaarta finalka gaadhay kuna soo dhawow channelka Hanfada Sports ugu horeyn waxaad hal daqiiqo aad ku soo koobtaa kooxaha u soo ciyaartay iyo meelaha ka soo ciyaartay magaalooyinka aad horta u maasantahay saaxiib macaan horta anigu hadda kooxaha ku tiriyo saaxiib macaan aad u fara badan yihiin ma ilaahay waxa kaaga bilaabay yaraanteedii mise ilaahay inta soo baxay oo macni aan bad cagta inta sir aad ciyaaraysay heerka koowaad horta inta sir aad ciyaaray waxa u soo dheelay kooxo badan ugu horeyso horta kooxda bad cagta oo ka dhisan Boosaaso Bari FC iyo macallin Cunaay uu wato kooxdaas baa u soo ciyaaray horta markii koowaad kooxdan ku soo caan baxay oo macnaheed in la barto koow ka ahayd horta waxa waaye Bari FC ma garat waa gartay anoo la yaqaan oo macnaheed caana oo macnaheed kubadeeduna ay sareyso kooxda labaad u dheelay waxay ahayd koox komsiyad ay dhahaan oo waxay ka dhisan tahay gaalkacyo aad iyo aad haye kadibna kubadeeda si aan hore ugu sii wado oo macni booska aan taagnahay aan ugu dhaqaaqo waxa soo aad caasimadda Soomaaliya Muqdisho markaas kadib anoo Muqdisho jooga macallin la dhaho Cabtaax Taatiko oo wata degmada Hodan baa run ahaantii aad soo dhaweeyay oo markaasna macnihii isaguna gacan qabtay oo aan degmadiisa u dheelayaan waa gartay isagaana ilaahay hadeerta isla soconaa isagaana maamul goboleedyada waxaas macallin ah isagaana insha Allah jeclahay inaa ilaayo kubadda inta heerka gaarayaan isla socono insha Allah aad baa u mahadsan tahay horta mar labaad waxaan ku leeyahay hambaliyo maadaama aad u soo gudubtay ciyaarta finalka oo waliba lugtaada ku soo saartay xulkaaga maxamedow dad badan baa waxay isweydiinayaan sababta adoo kooxaha heerka koowaad ee Puntland ka ciyaara magaalada Boosaaso khaasatan aad xulka Puntland ugu safan weyday oo aad ugu safatay xulka Galmudug horta aad u mahadsantahay horta sideedaba macnaheed qofku bini aadanka joos buu leeyahay ma garat waa gartay markii ay wuxuu tahay wax la soo xulaayo oo macnaheed meel laga soo xulaayo gobol waxa fiican macnaheed in lagu soo xulo waxa macnaheed si player kasta wuxuu khibrad u leeyahay ama uu awoodo ma garat aad iyo aad macallimiin iyo wasiiro iyo maxay ahayday dad sports ka shaqeeya baa macnaheed soo xulay Puntland anigana run ahaantii maahi anigu nin qabyaaladii waxaas macnaheed niyad ku jirta nin dhalinyaro baa sports meeshii lugteedu ay geyso oo ma isleeyahay halkaas macnaheed ku baahan run ahaantii horta ila qurux badnaatay inaa u dheelo maadaama la arki waayay oo indhaha macnaheed laga qabsaday anoo reer Puntland maxamed waxa tahay top scorerka ama goolasha ugu badan ayaa dhalisay waxa tahay laacibka xulka Puntland reebay deegaan ahaana Puntland ka soo jeeda gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaad nooga warantaa fursadan xulka kubadda cagta ee Galmudug ay ku siiyeen sabay ku dhacday in Puntland ku arki weydo Galmudugna ay ku aragto oo waliba maanta aad tahay top scorerka koobka ka socda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho horta koobka macnaheed Galmudug San Janiska uga helay run ahaantii waa dad macnaheed kubadda qofka fiiriya oo tijaabiya oo macnaheed hadii arkaan ku sheegay in macnaheed ku baahan yihiin ma garan
aad macallin khibrad leh baan u gartay haye aad u mahadsan tahay runaantii aad ii soo dhaweeyeen maasha Allah waa ka qaba intaasi in ka badan way iga istaahilaan adeer wali waa bilow ilaahay wax sugayna koobka inaan qaadno insha Allah oo aan caasimada galmudug Dhuusamareeb aan geeyno haddaan ku soo laabto su'aashaada Puntland runaantii balaayirin badan la xulay dadka waa la kala sifeeyay waa la kala shaandheeyay balaayir kasta balaayirka uu ka fiican yahay macallimiintu waa la hareen balaayirin fiican oo macnaheedu nasiib u yeelan waayo waa jiraan aad iyo aad laakiin si Puntland taas kama jirto oo macnaheedu balaayir lama xulo dhowr qof baa loo yaryara bas dhowrka qof baan xulka matashay ma garat maxamed waad mahadsan tahay waxaad nooga warantaa maanta waxaad ahayd kabtanka galmudug ma kabtan sharaf baa tahay mase kabtankii hore ayaa dhaawac ama ganaax ku maqnaa oo fadhiyay oo kabtanka labaad oo xulka galmudug baad ahayd saasa kabtan ku noqotay runaantii waxa ahaa kabtanka labaad ee xulka waana lagu sharfay kulankaasna saasa u xirtay aan waad mahadsan tahay maxamed si fiican baad uga jawaabtay su'aasha aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay malaga yaabaa mar labaad ama koob ka dambeeya koobkan inaad Puntland u safatid walow khalad laga galay adoo laacib yar oo daayar oo quality leh oo soo kacaya lagu arki waayay mustaqbalka malaga yaabaa inaad Puntland u soo safatid maadaama la isku wareegi karo oo playerku meesha raba ka ciyaari karo ama Hirshabelle ama Jubaland ama Banaadir ay ku furan yihiin kulligood inaad Puntland dib ugu soo laabatid oo u safatid malaga yaabaa meel laga jecel yahay hadaa ka tagto oo meel laga neceb yahay ama aan laga rabin aad tagto de waxay cadeynaysaa macnaheedu in dadka ku jeclaa aan niyada ka jibisay dad aan ku rabin aad u tagto horta ma garad aad iyo aad Puntland waa aniga waa dhulkayga waa meesha ku dhashay waa meesha ku soo barbaar waa meesha ku badda cagta aan ku bilaabay ilaa iyo hadeertaan waqtigan aan Muqdisho joogo iyadan soo joogay horta run ahaantii galmudug sanadka waa metelay maamul goboleedadana qofku sanadka gobolku rabo u dheeli karaa laakiin se aniga ahaan fikirkeyga macnaheedu horta kubadda macnaheedu in aniga aan hore uga sii socdo baa jecelahay oo macnaheedu meesha aan hadeer taagna inaan sii taagnaado wax niyadeeda ku jira ama wax aan aniga taageerayaasheeda macnaheedu inaan ku qanciyo igu sharaf ama igu qiimo badan maahan sababtoo ah boos baa hadeer jooga booska inaan kasii socdo ilaa iyo heer qaran ilaa iyo heer macnaheedu inta kasii sareysa aan tiigsado baa jecelahay marka su'aashaas saasa kaaga jawaab insha Allah waa mahadsan tahay maxamed top scorerka koobka ka socda caasimada Soomaaliya maamulada Soomaaliya su'aal waxaan ku weydiinayaa adag waxaan jeclaan lahaa jawaab kooban inaad iga siisid oo aadan igu soo celin waxaan maqlay in listiga ciyaartoyda Puntland la soo xulay adiga iyo saaxiibka Karik oo isku koox ka ciyaartaan magaalada Boosaaso la idinku soo daray taa maxaa ka leedahay horta su'aashaas macni aniga ma aanan maqal de balaayirinta Puntland markii la soo xulaayo qofka waa la wacaa waxa la dhahaa niyo xulka ku jirta imow training soo gal ama waa loo sii sheegaa intaan macnaheedu aan la xulin marka aniga lambar aan leeyahay meel igala soo xiro dad baa leeyahay friends saaxiibanahay oo la soo mari karo family baan leeyahay macallimiin baa leeyahay aniga la soo mari karo dhihi karo macnaheedu sida hadeer macallinka bari FC oo kala cunay balaayirkaas sanadka laga qaadaya macallinkayga lama soo hadlin oo wax iima sheegin lama soo hadlin lama oran ninkaas laga baahan yahay aniga shakhsi ahaan leema soo wicin oo leema oran waa lagu baahan marka su'aashaas waa su'aal been oo macnaheedu iskaga jirta social media aad baa u mahadsan tahay maxamed maxamuud Sarqaawi laacibka gool dhalinta hogaaminaya horyaalka ka socda ama tartanka maamulada Soomaaliya ee caasimada Soomaaliya ka socda isla markaasna u soo baxay ciyaarta finalka kama dambaysta berri hadii ilaahay idmo gobolka Banaadir iyo koonfur galbeed kii soo baxa ay finalka ugu tagi doonaan maxamed su'aasha u dambayso aan ku weydiinayo waxa weeye taageerayaashaada Soomaaliya oo dhan meel kasta ay joogaan aniga kula hadlaya aan kamid ahay markii aan maqlay laacibkaas halkaas wacdanahaas ka dhigay runtii taageero gaar ah ayaan ku hayay maxaad u soo jeedinaysaa dhammaan taageerayaashaada meel walba ay joogaan
horta taageerayaashayda aad iyo aad ba ugu mahad celinaya run ahaantii meeshaan haddeer joogo horta kow inaad tago iyagaa horta sabab u ah iyagaan i gaarsiiyey aad iyo aad ay u mahadsan yihiin haddii aan run ahaantii awoodo micnihii waxyaabo kale aan u samayn karo waa jeclaan lahaa insha allah meel walba ay taageerayaasheeda joogaan haddii puntland ahaan lahayd haddii galmudug ahaan lahayd haddii ay soomaaliya meel kasta ay tahayba ay ahaan lahayd waxaa u dirayaa salaan iyo laaba aad iyo aad ayaan ugu mahadsan yihiin taageernimadooda anigana mar walba insha allah waa ka farxinayaa waxaana jecelahay insha allah inay farxadooda sii laba jabaarmato marna aanan niyad jibin aanan qalbigooda dilin aad baa u mahadsan tahay maxamed maxamuud sarqaawi laacibka 19-ka gool dhalinta hogaaminaya finalka gaarsiiyey xulka galmudug hambalyo ayaan ku leenahay gul baana ku rajaynaynaa maalinta finalka